بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بيش بركيسان رمضان أعماش lagu sameeyo oo runtii acmaal aad iyo aad u fadli badan oo meel kasta laga soo qabto ajirkeedu uu badan yahay. haddana waxa aad u sii fadli badan in la isku dhiirigeliyo sadaqada oo bisha Ramadaan la bixinayo sababtoo ah yani bisha waxa loo waajibiyay soonka dadka wax haystay in si baraatika loo dareensiyo xanuunka ay gaajadu leedahay si ay u xusuustaan ayaga hadii maanta oo kali ah ay gaajoodeen oo hadhow markii gabalku dhacana waxa la wixii ay rabaan ay cunayaan ama cabayaan oo ay heli karaan arintaas ayada ah inay ogaadaan inay jiraan dad sanadka oo dhan gaajadii ayaga maanta qabatay oo kale ay hayso oo ay markaas dareen ay ku soo dejisaan inay wax sadaqaystaan wax sadaqadaas la sadaqaysana bisha Ramadaanka midna waa mid la isku waajibiyay oo zakatul fidriga markuu Ramadaanku dhamaanayo la isku waajibinayo oo taas ay ku tusayso ahmiyada ay sadaqadu leedahay midna waa mid tadawuc ah ama yani qofka uu samafalanayo oo ay kamid tahay mesela dadka sooman oo la afuriyo ajirka ku jirana oo nabi sallallahu alayhi wasallam yiri qofkii qof afuriya dambigiisana waa dhaafaya naartana waa laga xoreynaya qofkan uu afuriyay ajirka uu helayo ajir la egna waa la siinaya asagoo kii la afuriyay waxba laga goosanaynin dadka waayeelka ah ama dadka xanuunka qaba oo xanuunkooda uusan yani daawo lahayn kuwaas ayagana ah waxa yani bedelkii soonka loo galiyay inay fidyo wax la yiraahdo bixiyaan oo sadaqa ah oo dadka danyarta lagu kaalmaynayo intaas oo waxay ku tusaysaa sadaqada sida yani bisha Ramadaanka ay muhiim ugu tahay nolosha dadka muslimiinta ah oo ah isdareensiinayo in la isu naxariisto oo kii wax haystay uu dib ugu celiyo kan wax haysanin saasa bulsho waxa ku soo baxaysa wanaagsan oo isu naxariisata oo midna uu ducaynayo markii wax la siiyay midna uu bixinayo wuxuu Ilaahay uu siiyay qofkii wax bixiyana yani inuu ka fadli badan yahay qofka qaatay dadka maalka Ilaahay uu siiyayna hadii maalkooda ay u isticmaalaan inay janno ku iibsadaan ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم أي أصحاب تقارك أو حبايب سنة النبي كوير هذين تدك حولها له أجر كيودن أي نجا أرور صدام وحيل الإسلام أنتو كنا وينورتو كذا صون كنا وينرده ولا جان ويتصدقون ولا نتصدق أيوة حبايب بحثنا نوسع ما بحثنا مركز حكومة التسبيح التحميد التكبير يعني آخرية ويكذب آخريا أيقونا مركز هذين وحيل هذا وينكذب آخريا سنيلنا وكل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء arrinkaas waa fadl ilaahay ruuxu doona uu siiyo marka qofku ilaahay isugu daro yani maal inuu siiyo xaga kalena wajiyada khayrka ee lagu bixiyo ee sadaqada ah ilaahay uu waafajiyo waa fadl ilaahay uu siiyay qofkaasi ilaahay uga mahad celiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aan ku daynaynana yani uu deeqsi ayuu ahaa mar walba laakiin haddana wuxuu aad deeqsi u sii ahaa oo inta in ka badan uu sii bixin jiray ramadaanka marka la gaaro ajwad ma yakunu fi ramadaan deeqsinimada ugu badan ramadaanka ayay ahayd taas oo ku tusaysa waxa la bixiyo sadaqada iyo ajirka laga helayo marka ummadda Soomaaliyeed oo runtii duruuf adag meelaha qaarkood ay ka jiraan oo roobka ay soo daaheen oo dad ay barakacayaal ay jiraan ummadda waxa la rabaa marka dadkaasi inay ogaadaan kuwada wax Ilaahay siiyay si Ilaahay ugu barakayo xoolahooda iyo caruurtooda inay walaalahooda masaakiinta waxba haysanin ayna moogaanin oo ay wax siiyaan ajir badan oo ay ka helayaan Ramadaankana Ilaahay subhanahu wa ta'ala yani wuxuu ku siinayaa mudaacaf wax la laban laabo qofkii wax uu bixiyana suu Ilaahay ugu laban laabayo Ilaahay wuxuu mathalu alladheena yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudaa'ifu liman yasha yani wasada yani loo dareensiinayo wixii aad bixiso Ilaahay dirta aad u bixiso in laban laab badan aad ka helayso ee ayadaas tilmaamaysay marka waa fursad qofkii ka faa'iideysan karo oo Ilaahay wax u dhiibay bisha Ramadaan sadaqada lagu bixiyo way ka fadli badan tahay sadaqooyinka bilaha kala la bixiyo inta ay joogayso bishuna waa in yar oo Ilaahay uu ayaaman macduudaad intaas yar ay joogto ha laga faa'iideysto qofka xataa sadaqo bilaha kale ee soo socda isdhehi laha aad bixisid hadda inuu soo hormariyo oo dadka siiyo maadaama ay baahina jirto waajib soonna uu jiro dadkuna afur iyo suxuur ay u baahan yihiin in dadku dhan si ay wada farxaan laga wada qayb qaato ayaa loo baahan yahay هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.